Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horay ayaa loo yiri caafimaadku waa nicmad ay arkaan dadka xanuunsan oo ay ka maqan tahay oo kaliya. Maalintii xanuun yari ku qabsado ayaa dareemaysaa qiimaheeda. Waxyaabaha aysan dadku ka fakerin ayaa waxaa ka mid ah neefsashada oo muhiim noo ah oo uu jirkeenu si otomaatig ah u sameeyo. Laakiin sheekada maanta waxaan ku soo qaadan nin xanuun hayo oo ah inuu neefsan karo inta uu soo jeedo oo kaliya. Haddii uu seexdana uusan awoodi lahayn inuu neefsado. Jirkeenu waxa uu ka kooban yahay wax ka badan 37 trilyan oo unugyo aad u yaryar ah oo aysan ishu kaligeed arki karin. Laakiin kulligeen waxaan ka bilaabanay hal unug oo kaliya oo ku tallaalmay raximka hooyada. Unugaas ayaa tarmay sidii uu isu kala qaybinayayna u noqday qof bani aadam ah oo dhammaystiran. Haddaba unug kasta oo jirkeena ka mid ah waxa uu u baahan yahay energy uu ku shaqeeyo. Energy-gaas ayaa waxa ay unugyadaasi ka helaan cuntada aan cunno iyo oksijiinta hawada ee aan qaadano. Haddaba cuntada aan cunno ayay unugyada jirkeenu ku daraan oksijiinta si ay energy u dhaliso oo jirkeena awood u siisa inuu hawlihiisa qabsado. Waxaa sidaas oo kalena sameeya gawaarida shidaalka ku shaqeeya iyo diyaaradu oo ma socon kari lahayn oksijiin la'aanteed. Sababtoo ah motorkooda oksijiinta iyo shidaalka wuu ku isku daraa si uu u dhaliyo energy uu gaarigu ku dhaqaaqo. Haddaba sheekada aan ka hadlayno ayaa ah cudur sababa in qofku uusan neefsan karin haddii uu seexdo. Cudurkan ayaa waxaa la dhahaa Oden's curse. Dad aad u yar oo adduunka ku nool ayaa qaba oo uu ka mid yahay Liam Derbyshire. Dhakhaatiirta ayaa marka uu dhashay waxa ay yiraahdeen muddo dhowr usbuuca oo kaliya ayuu noolaanayaa. Laakiin maanta waxa uu jiraa 19 sano isaga oo wali cudurka la nool. Qolkiisa ayaa waxa uu yahay sidii cisbitaal oo kale. Maalintii si caadi ah ayuu hawlihiisa u qabsadaa. Laakiin markii habeenka la gaaro oo uu isu diyaariyo inuu seexdo, ayaa si gaar ah loo maareeyaa. Maadaama goorta uu seexdo uusan awoodin inuu neefsado, haddaba si uusan u dhiman ayaa waxaa qolkiisa lagu xiray qalab oksijiinta dhaliya. Sida cisbitaalada oo kale oo lagu xiro dadka koomada ku jira ama dhaawacyada qaba ee u sahasha inay si dabiici ah u neefsadaan. Wiilkan ayaa waalidkiis ilaaliyaan xaaladiisa iyagoo uu qof ka mid ah uu korka ka ilaaliyo. Waxaa kale oo ay lacag fara badan ku bixiyaan sidii ay u heli lahaayeen dhowr meelood oo ay koronto ka helaan maadaama uu qalabka u baahan yahay wiilkan si uu u noolaado ay koronto ku shaqayso. Hal shirkad koronto aan la isku haleyn karin oo ay dhici karto inay korontadu ka tagto. Haddaba Ilaahay ayaa mahadle naga dhowray dhibaatooyinkaas oo kale. Haddii aad ka heshay fadlan like garay subscribe na samee inta aan mar dambe kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.